wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliya ayaa magaalada Nairobi kula kulmay dhagiisa dalka Kenya. Axmed Maxamuud Jaamac ayaa warkan noo faahinay. wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dalka Soomaaliya Maxamed Salaad Omar ayaa magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya kulan kula qaatay dhagiisa dalka Kenya Mr James. kulankan ayaa waxaa looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin duulimaadyada tooska ah ee Kenya iyo Soomaaliya iyadoo ay Kenya danaynayso in shirkadda diyaaradaha Kenya Airways ay duulimaadyo toos ah ka bilowdo gudaha dalka Soomaaliya. si hayaha safaaradda Soomaaliya ee dalkani Kenya ahna qunsulka safaaradda Soomaaliya wasaaradda gaadiidka dowladda Kenya ku kulmay wasiirka gaadiidka duulista hawada Soomaaliya iyo wasiirka gaadiidka dalka Kenya wasiir Maxamed Abdullahi Salaad iyo dhigiisa Kenya waxay ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa heshiiskii labada madaxweyne ay ku kala saxiixdeen horaantii bishii May follow up keedii ayuu halkan u yimid runtii wax badan ayaa la soo qaaday waxay ka wada hadleen in diyaaradda Kenya Airways ay flight ka bilowdo Soomaaliya waxay kale isla soo qaadeen in tababar loo sameeyo shaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dhanka Kenyana way ballan qaadeen arrintaasi waxa sidoo kale wasiirku uu sheegay in ilaa iyo hadda ay tababar u fidiyeen 242 oo shaqaale ka tirsan air traffic controlka kaasoo dhamaaday 30kii bishii June ee la soo dhaafay haddana waxay ku maqan yihiin job training ay waxay ugu maqan yihiin magaalada Kisumu. wasiir Omar ayaa ugu dambeyn warbaahinta kula hadlay dhismaha wasaaradda gaadiidka ee dalkani Kenya isagoo sharaxay shirkan iyo ujeedkii laga lahaa. waxaad goobjoog ka ahaydeen shirkii aan la yeelanay wasaaradda Ministry of Transport and Infrastructure dowladda Kenya wasiirka iyo teamkiisa ayaan la kulanay ninka civil aviationka madaxda ka wasaaradda arrimaha dibadda inta goobjoog ayay ahaayeen ujeedada socodkeena iyo shirkeena wuxuu ahaa in ka faa'iideysano dowladda Kenya wasaaradda dhigeena ah oo kale waxyaabaha ay qabato iyo sida ay u qabato si anagana maadaama aan soo marnay muddo dheer oo dawlad iyo burbur aan soo marnay waxaan doonaynaa inaan ayaga ka faa'iideysano sida dawladdu ay u shaqeyso sida wasaaradoodu ay u shaqeyso innagana aan isdhaafsano fikradaha ku saabsan dhinaca security-ska airportlada direct flights ka Soomaaliya ka yimaadaan duulimaadyada tooska ah ee ka soo baxo Muqdisho halkan yimaado sida aad la socotiin muddo dhow bilaabatay haddana sidii aan u sii kordhin lahayn intaas waan ka wada hadalnay waxaan kale oo ka wada hadalnay diyaaradda Kenya Airways oo rabta inay direct flights ka bilowdo ayagana Nairobi ilaa Muqdisho sidii loo dejin lahaa arrintaas. Axmed Maxamuud Jaamac raadiyaha telefishinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Nairobi.